السلام عليكم صاحبada ku xiran bogeenan bukaandeeq clinic ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka aan mar walba halkaan in kaga soo gudbino magaciiguna waa Dr. Shariif Xidig hadii ilaahay ma muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 6 qodob oo laga rabo inuu sameeyo qofka isku arka dhiig-yarida ama anemiyada nooceeda lagu magacaabo iron deficiency anemia ama folate deficiency anemia sidaan ognahay hooyada uurka leh waxa ugu badan ay ka cabato waxa kamid ah dhiig-yarida nooceeda lagu magacaabo iron deficiency-ga ama folate deficiency-ga sidoo kalena qof waliba oo tabar yari ama difaac yari la kulma waxa ku dhici karta dhiig-yarida noocyada kala duwan ama infection oo ku dhaco marka waxaan idin soo gudbin doonaa ama ku soo gudbin doonaa 6 qodob oo qofku sameyn karo kuna sameyn karo gurigiisa asagoo takhtar u tagin isla markaana uu ku heli karo iron ku filan kagana maarmi karo inuu dawo qaato dhiig-yaridu sideedaba waxa ay ka timaadaa marka red blood cells-ka ama unugyada dhiigga cas ee qofka ay hoos u dhac ku yimaadaan sidoo kalena borotiinka lagu magacaabo hemoglobinka jirka oo ku yaraado taas oo micnaheedu ay tahay oxygen-ka loo baahnay inuu gaari waayo qaybaha kala duwan ee jirkaaga marka taasi markay dhacdo waxa uu sameyn karaa qofku 6 qodob ee soo socota si uu uga gaashaanto isla markaana uu u helo iron replacement oo jirkiisa uu la falgalo ciladaas timaaday isla markaana iron fara badan loo soo saaro qaybaha kala duwan ee jirkana loo gaarsiiyo oxygen-ka ay u baahnayeen qofku waa inuu cuno raashin ay ka buuxdo iron sida qudaarta cagaaran ansalatada iyo noocyada lamid ah iyo raashinka lagu magacaabo whole grain-ka waa raashinka qolofta leh sida digirta iyo salbukada raashinkaas oo aan calooshu si dhaqsi ah aysan u shiidi karin isla markaana si tartiib ah energy-giisa looga faa'iideysto caloosha qofkana jilcin kara qodobka labaad qofku waa inuu isticmaalo raashin oo ka buuxo vitamin C vitamin C-ga badanaa waxa laga heli karaa liinta noocyada kala duwan sida liin dhanaanta liin ugunjida iyo liin balbeemada dhammaan waa laga heli karaa vitamin C-gaas qofka waxay siinaysaa awood ah immunity-giisa inuu kordhiyo isla markaana uu la dagaalamo infectionska ka faa'iideysan kara iron-tiisa yaraatay oo infectionkaas oo lagu magacaabo aborigines infection markaana uu jirku iska difaaco infectionkaas weerar ku soo qaadi kara lambar 3 waa inuu qofku cabin shaah iyo kafee xilliga uu raashinka cuno kadib waayo taasi waxay sameyn kartaa barrier ama caqabad ku timaada dhuuqistii iron-ta ee laga dhuuqi lahaa caloosha iyo mindhicirada si jirku kaga faa'iideysto iron-taas raashinka ku jirta oo loo soo dhuuqo isla markaana dhiigga loogu daro si ugu dambeyn loo gaarsiiyo qaybihi kala duwan ee jirka iron-tii oo u baahnaa lambarka 4 waa inuu qofku cuno ama uu qaato raashin ay ka buuxaan fitamiinka 12 iyo folic acid folic acid iyo fitamiinka 12-aadna waxay faa'iido u leeyihiin soo saarista hemoglobin cusub iyo dib u habeynta red blood cells-ka waxaana laga helaa ukunta kalluunka iyo digaaga qodobka 5 qofku waa inuu cabo cabitaan aad u fara badan si uu uga gaashaanto fuuqbax ku yimaada iyo sidoo kale in dib uu u soo saaro jirkiisa unugyo dhiig oo ku filan isla markaana qofku rehydration ama fuuq celin oo u helo lambarka 6 waa in qofku uu cuno 1 ama 2 xabo oo timir ah quraac kasta si uu u helo tamar isu dheelitiran iyo awood uu kaga gaashaanto xanuunada soo wajaha iyo tabar darida isla markaana qofku energy fara badan oo u helo wad mahadsantiin